kula wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dalka ee dadka oo sabdiil ay Arbaca aad ka maqashaan Himila FM qodobada aad ku maqli doontaan daqiiqadaha uu hawada ka baxeen waxaa ka mid ah hay'adda qaramada midoobay ayaa cilaamisay maalinta caalamiga ee horumarka ciyaaraha iyo nabadda taasi oo sanad waliba dunida lagu dabaaldego 6 Abriil waa warbixin ku saabsan maalinta caalamiga ah horumarka ciyaaraha iyo nabadda awalkii hore ciyaarta bulshada wax walba isku keenay jirtay dhalinyarada degan Kismaayo inay imaadaan dhalinyarada kubadda isku bartay inay u soo hoydaan kuwan ay baxaan Kismaayo aadaan isdhexgalka dhalinyarada rag iyo dumarba wuu ka qayb qaadan karaa sportiska aragtida dadweynaha ciyaaraha door intee la eg ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada isboortigu waxa uu mar waliba uu saameyntiisa iyo xooggiisa uu yahay amaba uu jiri karaa uu noolaan karaa markii la helo nabad waarta oo markaas ka jirta dalka ama goobta markaas lagu ciyaarayo xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya isboortiga iyo nabadda waraysi ayaan idinkaga haynaa laakiin siyaabaha ugu fiican oo qofku uu u noqon karo qof xigmad badan waa inuu noqdaa qof dhageysta fiican oo wax dhageysta waxweynta wax ka baro oo aan ku soo qaadan doono sida loo noqdo qof xigmad u saaxiib ah wajiga furmarka macaani indhahayga miyaa mase acuudu billah xitaa wejigada u qabtay soor qabow maanta inta la iga keen waabin kaarnay adiga maxaa yaa abo macaano abo waxay dhihin abeesaa ku rugtay waa maada barnaamijka abooto kutubay qaybtii 11aad waxaa igala qayb galaya wariyar ka tirsan Himila FM soo saaraha ay tabintu waa Maxamed Xasan Maxamed soo dhawaada dhegeystayaal maanta oo kale waxaa sanad waliba dunida looga dabaaldegaa maalinta caalamiga ah ee horumarka ciyaaraha iyo nabadda iyada oo uu ujeedka yahay sidii ciyaaruhu ugu qayb noqon lahaayeen nabadda isla markaana dadweynaha ay muujin lahaayeen in si wadajir ah ugu qayb noqdaan dhabaha nabadda haddaba warbixintan soo aadan ayaan ku eegaynaa muhiimadda maalinkan loo aasteeyey waxaa soo jeedanaya Cabdiraxmaan Maxamed Cali hay'adda qaramada midoobay ayaa cilaamisay maalinta caalamiga ee horumarka ciyaaraha iyo nabadda taasi oo sanad waliba dunida lagu dabaaldego 6 Abriil maalinkan ayaa dib loogu celiyaa furitaankii ugu horeeyay ee ciyaaraha Olimbikada sanadkii 1896 markaas oo la dareemay qiimaha ay ciyaaruhu u leeyihiin dulqaadka cadaaladda iyo wada shaqaynta iyo xushmada qof waliba kan kale uu u qadarinayo iyada oo taageero la soo muujinayo isla markaana si wadajir ah looga wada qayb qaadanayo sidii loo heli lahaa nabad isboortisku wuxuu ka kooban yahay noocyo badan sida jirdhis tartamo iyo noocyo kale sidaa darteed maalinkan ayaa looga gooleeyahay in si togan looga faa'iideysto qaybahaas golaha guud ee qaramada midoobay kalfadhi oo ku yeeshay 23 Agosto sanadkii 2013 xarunta dhexe New York ayaa lagu iclaamiyay 6 Abriil oo ah maalinka caalamiga ee horumarka ciyaaraha iyo nabadda go'aankan ayaa ku dhisnaa sidii awood loo sii lahaa ciyaaraha isla markaana loo wacyigeliyo bulshada waxaa maalinkan ka qayb qaata weynaynteeda wadamada caalamka gobolka ururada ciyaaraha iyo hay'adaha horumarinta kuwaasi oo soo bandhiga tartamo lagu weyneeyo maalintan ayadoo dunida uu saameeyay cudurka coronavirus taasi oo sababtay in dhammaan la hakiyo dhaqdhaqaaqa isboortiska UN-ka ayaa sanadkan hal ku dhig u qaatay helidda diyaar garow iyo caafimaad si looga guuleysto COVID-19 dhanka kale maalintan waxay ku beegan tahay maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed taas oo sanad waliba la xuso iyadoo hambalyo ku aadan maalintan la wadaagtay dhammaan ciyaartoyda Soomaaliyeed wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ciyaartoyda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay hambalyo ku aadan munaasabada 6 Abriil oo ah maalin qarameed oo ah maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed dhammaan ciyaartoydii hore iyo kuwa hadda daayarteenna gudaha iyo dibad meel kasto ay joogaan munaasabada maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waa maalin caalami ah oo ah maalinta nabadda iyo isboortiga adduunka ayagana bahda weynta isboortiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo isboortiga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu awoodda badan dunida iyada oo dadka xiiseeya ay yihiin kuwa si weyn u daneeya daabashada iyo ciyaaristuba bilowga 2020 waxa uu noqday sanad aan dunida aad loogu mahdin iyada oo maalinta xigta uu dunida ku faafayo caabuqa COVID-19 kaasi oo sababay in caalamka uu kala xirnaanshahaas iyo dhibaatada uu dhaliyay coronavirus waxay keentay in gabi ahaan la hakiyo dhaqdhaqaaq waliba oo ku aadan ciyaaraha iyada oo la joojiyay kuwii socday iyo kuwii la rajeynayay in ay qabsoomaan sanadkan cabsi laga qabo cudurkan awgi
haddaba liwaan cabdi warsame ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha oo uu weydiiyey sida ay u arkaan maalinkan iyo sida ciyaaruhu loo hakeeyey. magacayga waa xasan maxamed. xasan soo dhawow aragtidaada ciyaaraha door intee leeg ayay ku leeyihiin horumarka nabadda iyo isdhexgalka bulshada. warniyow ciyaarihii hadda aragtada dhallinyarada beelay ahayd maadaama hadda ciyaarihii joogsadeen oo macnaha dhallinyaradeenna badanaa hadda ciyaarihii laga joojiyo isdhexgalka bulshada aana jirin waxaa u rooneed isdhexgalka bulshada markuu jiro ciyaarahana la dheeli jiray. hadda ilmihii dhallinyarada waxay u bateen nin walba inuu isdhexgali jirin aragtidii dhallinyaradana macnaha kala dhuntay oo hadda dhallinyarada nin walba hadda meel lagu kala sheego jirin oo hadda ilmihii u bateen oo isa siiyeen balwadi ilaan wax ciyaaraha dhan ma jiraan. awalkii hore ciyaarta bulshada wax walba isku keeni jirtay dayneyle wadajir dharkiinley meel walba dhallinyaradu isbaranaysay. hadda ilmihiiba maxay isku bartaan ciyaaro la dheeloy male nin walba balwadu ku mashquulsan yahay. haddii hadda ilmihii macnaha oo ciyaarihii inta loo furo oo ciyaarihii dheelaan oo meel walba macnaha oo ciyaartii ka bilaabato oo isdhexgali lahaayeen dadkii dhan bulshay naqan lahaayeen. hadda ciyaarihii haddii loo qaban lahaayaa fiicnaa lahayd qof walba macnaha bulshadiisa u baran lahay madiino wadajir dharkiinley dayneyle meel walba bulshadiias dhexgal lahayd nabaday naqan lahayd. hadda haddii ciyaaro lahaynin nabadda ma jirtaba wax nabada male in ciyaaraha macnaha layska furo oo ilmihii ciyaaraha la baro oo isdhexgalka bulshada isku imaadaana fiicneed. haddii markaas laysku imaan lahay nin walba isbaran lahay degmo walba wadajiri dharkiinley iyo dayneyle iyo meel walba isbaran lahaayeen. hadda laakiin ciyaaraha hadday jirin maxay isku baranayaan dhallinyarada nin walba isma yaqaano oo ciyaaraha bulshada iyo wax walba dhaqankooda macnaha isdhexgalo bulshada meel walba dhallinyaradu isku imaan lahayd waa iswaraysan lahaayeen nin walba isbaran lahay degmo walboo joogo nin walba degmadiisa ugu tagi lahay. hadda laakiin hadday ciyaari jirin degmo laisku tagaay male meel walba iskugu imaanayaanna male nin walba meeshiisa oo kale aada. anigoo xasan cabdullaahi maxaad. soo dhawow aragtidaada door intee leeg ayuu isboortiga ka qaadan karaa horumarka nabadda iyo isdhexgalka bulshada. maasha allah waa ku dhowahay door weyn ay ka qaadan karaan ciyaaraha isboortiska isdhexgalka haddii la yidhaahdo ciyaaraha isdhexgalka dhallinyarada haddii la yidhaahdo door weyn ay ka qaadan karaan 100% li'anno nabadda sideeda banaanba waxay ka timaadaa dhallinyarada markii naadigan oo maanta masalan wadajir oo kale iyo beri oo kale markay iswacdaan ay isbalasadaan waxa ka soo baxaya meesha qoomiyad badan oo maxaa la yiraahdaa oo markaas oo isku soo jiidasho leh nabad dad laba xaafadood kala degan oo waxa dhaxayso oo isbooqasho iyo isbarasho iyo maxaa la yiraahdaa inay si korodho oo nabadina waxay ku imaan kartaa inay horta dadka ay isbartaan oo nabad waxay tahay ay istusaan ciyaaraha foostuwan aan leeyahay marka degmooyinka sideed iyo tobanka degmo dhan oo muqdisho haddii loo sameeyo macnaha اجتماع مثلا فرصة الله سي أو معناه سبورت سلوس سماه وحامي سناي سبورت سيجاس إنه نود بقول وحق هذا كرو. مجهي أحمد اسمه شريف. أحمد سود دو عرفتي هذا عيارها دور أنت لاك أي كليهين هرمركة نبض إياه إسحاقك بالشدة. إسحاقك بالشدة وكل هذا بقول كي بس عشان عرفتي ذي. سببته هذا اللي يرضي قدام عمل إيه هايان ملهن هدي كبدا سي لو دقاليو aad iyo aad u jecel yihiin tusaale ahaan dhallinyaradii oo degan dhallinyarada haddii loo qabto koob degmooyin jiirooni degmooyin kulli haddii loo qabto koobkaas waxaa imaanaya dhallinyaradii inay isdhexgalaan dhallinyaro degan kismaayo inay imaadaan ay bartaan dhallinyarada kubadda isku barta inay usoo hoydaan kuwana ay baxaan kismaayo aadaan isdhexgalka dhallinyarada rag iyo dumarba wuu ka qayb qaadan karaa isboortiska maadaama isboortiska oo hogaaminaya dhallinyarada ay ka mid yihiin kuwa dhibaatada badanaa keeno ama dheefta waddanka keenaan maadaama nabadii xaggeeda dhallinyarada ay ku badan tahay waxaa wanaagsan in isdhexgalkooda loo zaa'idiyo nooc walba ha noqoto isboortis. Didier Drogba oo ka mid ahaa ciyaartooydii saameynta ku lahaa kubadda cagta 20kii sano ee lasoo dhaafay waxa uu ka guulgaaray dagaal muddo ka socday dalkiisa taasi oo ilaa hadda aad loogu ammaano xiddigan. mar uu ka hadlayay heshiiska nabadda ee uu dalkiisa ku hogaamiyo ayuu yiri waxaan waayahayga ciyaaraha ku guuleystay koob badan laakiin waxaan marnaba weligay iloowi doonin sidii aan dalkayga ugu saaciday in aan ka guulgaaro dagaalkii ka socday. xarunta dhexe UN-ka ee ku taala New York ayaa
23 Agoosto 2013 waxa ay golaha guud ee qaramada midoobay ku iclaamiyeen 6 Abriil oo ah maalinka caalamiga ah ee horumarka ciyaaraha iyo nabadda. Go'aankan ayaa ahaa sidii awood loo siin lahaa ciyaaraha isla markaana wacyigelin buuxda lagu taageeri lahaa bulshada. Haddaba maxay tahay dulucda maalinkan, maxaa ka dhaxeeya ciyaaraha iyo nabadda? weydiintaas iyo kuwa kale waxaan hordhignay wariye Haroon Yuusuf Qasaare oo arrimaha ciyaaraha wax ka qora. waad mahadsan tahay, waana dhowahay. maalintan caalamiga ah waa maalin sanadeed oo sanad walba la xuso, waxaana maalintan caalamiga ah isboortiga iyo nabadda, ama si kale haddii aan u dhigno markaasi ah maalinta caalamiga ah ee ciyaaraha, horumarinta iyo nabadda, ay tahay mid markaasi loogu dabaaldego sanad waliba sidii markaasi isdhexgal iyo nabad oo dhanka isboortiga ku tacalluqa lagu heli lahaa. marka maalintan waa maalin ay asteysay qaramada midoobay, waxaana ay kaga dhawaaqeen New York 23 Agoosto sanadkii 2013. waxaana markaasi qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in 6 bisha Abriil sanad waliba loo dabaaldego maalinta caalamiga ah ee ciyaaraha iyo nabadda, iyadoo markaasi maalintaas lagu dhawaaqa ay tahay Agoosto 2013 looga dhigay 6 bisha Abriilna ay tahay in maalintaasi ay ku beegan tahay maalintii Olombikadu ay ciyaaraha bilaabeen xagaagii 1896. maxaa ka dhaxeeya nabadda iyo ciyaaraha? nabadda iyo ciyaaraha wax badan baa ka dhaxeeya, xiriir badan bay leeyihiin. isboortiga aan jiri karin haddii uusan nabad helin. marka isboortigu waxa uu mar waliba uu saameyntiisa iyo xooggiisa uu yahay, amaba uu jiri karaa, uu noolaan karaa markii la helo nabad waarta oo markaasi ka jirta dalka ama goobta markaasi lagu ciyaarayo. isboortiga iyo nabadduna marka sidaas isku kaabaan, isagoo isboortiguna sidoo kale ka qayb qaata in markaa uu nabad kusoo dabaalidda dalalka. maalinkan caalamiga ah ee horumarinta ciyaaraha iyo sidoo kale nabadda sidee dunida looga dabaaldegaa? maalintan caalamiga ah 6 Abriil markaasi ah maalinta caalamiga ah ee ciyaaraha, nabadda iyo horumarka, markaasi weyn ayaa dunida looga dabaaldegaa, iyadoo hay-ado, ururo dawli ah iyo kuwan dawli ahayn, hay-adda qaramada midoobay, kuwa kale oo markaasi ka shaqeeya isboortiga noocyadiisa kala duwan ay xusaan oo ay u dabaaldegaan oo ay weyneeyaan. sidoo kale xiriirada ayaa ka mid ah iyo Olombikada oo iyada laftirkeeda loo asteeyay maalintan 6 Abriil, maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo ciyaaraha ay bilaabeen xagaagii 1896. marka wax badan ayaa markaasi ku jira maalintan dabaaldegeeda oo markaasi waa la weyneeyaa, aad baa loo weyneeyaa. nabadda iyo isboortiga markii lagu dhawaaqay sanadkii 2013 oo qaramada midoobay ay asteysay in maalinta 6 Abriil ay tahay maalin markaasi loo dabaaldegayo maalinta caalamiga ah ee ciyaaraha iyo horumarka. wax badan oo isbedel ah ayaa bilowday, iyadoo sanadkii 2014 xusitaankiisu ka soo bilaabanayo. sanadkii lagu dhawaaqay kii ku xigay marka dabaaldegiisa la bilaabay, ilaa iyo haddana waa la xusaa, oo xitaa sanadkan 2020 oo maanta aynu ku jirno waa la xusayaa, inkastoo adduunyadu ay markaasi ku sii jeedo dhibaato ay ka jirto dhanka coronavirus ah. marka waxyaabo badan ayuu markaasi ku soo kordhiyay oo ah horumaradii iyo sidoo kale nabad kusoo dabaalidii dalalka qaar. wax badan aa muuqda oo saameyn nabadda ah. sidaan la socono dunida hadda waxaa si weyn u saameeyay coronavirus ama COVID-19. sidoo ayuu caalamka gaar ahaan ciyaaraha uu saameeyay COVID-19? ciyaaraha kaliya maahane, dhinac walba oo nolosha ah ayuu saameeyay xanuunkan dunida ka yaabinaya. wuxuu saameeyay dhaqaalihii, wuxuu saameeyay waxbarashadii, noloshii caadiga ahayd, dadkii guryaha ku xaniban yihiin, sidoo kale isboortigii, isdhexgalkii, wax waliba oo ciyaaraha ku saabsan iyo wax waliba oo waxbarasho ku saabsan iyo dhaqaale, dhinac walba ayuu markaasi saameyn ku yeeshay xanuunkan coronavirus. saameynta ugu weyn wuxuu ku yeeshay ciyaarihii oo runtii ah halkii la isku dhexgalayay oo markaasi horumarkii iyo nabaddii markaasi ka shaqeynayay. waxaana marka saameynta ugu badan oo ku leeyahay baa dhihi karnaa dhanka isboortiga, maadaama inagu aan badanaa isboorti wax ka qorno la soconno. in uu xidiga ku dhacay, in markaasi taageerayaashii inay garoomada soo xaadiraan la diiday, in macallimiinta qaarkood ay la dhiban yihiin, qaar uu ku dhacay oo Arteta uu ka mid yahay Arsenal hogaamiya.
waxyaabo badan muuqda oo markaasi saameynta ugu badan oo COVID-19 ku yeeshay iyadoo ilaa iyo hadda horyaaladii shanta horyaal ee qaaradda Yurub ugu waaweynaa sida Premier League Ingiriiska Serie A Talyaaniga Bundesliga Jarmalka Ligonka Faransiiska iyo La Liga Spain ba ay xayiran yihiin si lamid ah tartamadii kale ee gudaha iyo dalalkaas iyo sidoo kale gudaha qaaradda Yurub sida Champions League Europa League iyo tartanka koobka qaramada Yurub oo isaguna dib loo dhigay marka waxyaabo badan ayaa madaxa isugu jira oo marka COVID-19 kan uu sababay iyadoo xitaa marka la eego dhaqaalihii maadaama uu saameeyay kooxihii ay kooxuhu ku dadaalayaan in mushaar dhimis ay ku sameeyaan shaqaalahooda iyo xidigihii markaa u ciyaarayay halka kuwa kale ay leeyihiin mushaarkooda lagama dhimayo Spain haddii aan eegno Barcelona ayaa markaasi bilowday ololahan mushaarka lagu dhimayo boqolkiiba 70 ee xidigaheeda iyo shaqaalaheeda ka jartay dhinacan kale markaan aan u imaanana Premier League Ingiriiska wali markaas lama iclaamin oo in mushaar dhimis la sameeyay laakiin kooxaha ay kamid tahay Tottenham waxay go'aansadeen in markaas aysan wax mushaar ah aysan siinin shaqaalaheeda oo shaqadii ay ka joojiyeen sida Newcastle oo kale shaqaale joojin ay ku sameeyeen maadaama inta xasaradan xanibaadan coronavirus ay taagan tahay shaqaalaha wax mushaar nooma lahayn ay yiraahdeen Liverpool laftirkeedu waxay leedahay waa inaan markaa mushaar dhimis sameynaa laakiin labada Manchester hadalada dhawaan ka soo baxay waxay leeyihiin waa Manchester United iyo City wax mushaar dhimisa ma ku sameyn doono shaqaalaheena sidoo kale waaxihii kale maalinlaha ahaa sida maalinlaha u shaqeynayay sida dhalinyarada kubadda soo qabanayay booliska ilaalada garoonka iyo waxyaabaha kale gunooyinka maalinlaha ku shaqeeya waxa la leeyahay kama jaran inay leeyihiin labada Manchester laakiin kooxaha kale ay farta ku gudan tahay oo Liverpool ba ay kamid tahay oo leh inagu waa inaan dhaqaalihii oo saameyn nooga yeeshay xanuunkan waa inaan qiimo dhimis saa'ida ku sameynaa waa tahay dabcan marba haddii intaas oo tartama la hakiyay waliba ciyaaraha ugu weyn ay kamid yihiin ciyaaraha Olimbikada tartamada heer caalami gaar ahaan maamulada ama dabcan qaaradaha sida America Europe iyo sidoo kale qaaradda Afrika intaas ba haddii uu hakad ku yimid ma moodo sanadkan in maalintan caalamiga ah munaasabadii loogu talagali lahaa ama ujeedkii loo weyneyn lahaa oo san jirin sanadkan wuu jiraa sanadkan inkastoo si weyn aan loo weyneyn doonin haddana sanadkan waxyaabaha lagu soo qaadanayo oo dabaaldeguba uu noqonayo waxaa kamid ah caabuqan dunida ku faafaya ee coronavirus diiradda lagu saari doonaa dadka cashiro online wacyigelin online baa la siin doonaa hay-adda qaramada midoobay oo kale cashiro bixin doontaa iyadoo markaasi la weyneynayo maalintan inkastoo ay ku soo aaday maalin dadku ay dhiban yihiin oo coronavirus uu saameyn xoog leh ku leeyahay haddana maalintii meesha lagama saarin oo waa la xusayaa sanadkan 2020 iyadoo markaasi isku imaatinka iyo mawduuca barnaamijkaba uu yahay COVID-19 iyo saameynta uu ku leeyahay maalinta nabadda iyo isdhexgalka iyo horumarka ee dhanka ciyaaraha hakin haddii uu ku yimid ciyaaraha sidee ay u saameysay dadka xiiseeya guud ahaan isboortiga dhan haddii aanan qaldanayn maanta waa maalintii 25aad oo markaasi ciyaaraha laga maqnaanayo oo aan wax ciyaar ahba kor loo tuurin kubad aan la daawanin dadka ciyaaraha la socda waxay ku leeyihiin waan u xiisnay ciyaarihii aad baan ugu xiisnay nin walba kooxu taageera xidigu taageera wixii oo dhan marka indhaha isku qabsaday marka saameyn xoog leh ku yeelatay in markaasi coronavirus uu albaabada u laabo ama hakad geliyo guud ahaan ciyaarihii taageerayaasha kubadda cagta la socda adduunka oo dhanna markaasi waxay doonayaan mar-un inay arkaan ciyaarihii oo dib u soo laabtay oo halkooda ay kooxdii ay taageerayaan ama xidigihii ay la socdeen ay u sacabtumaan inay dib u arkaan bay rajeynayaan marka saameynta ugu badan iyagiina waxaa weeyaan inay u xiiseen kubaddii maadaama dad isboorti ay yihiin oo markaasi ciyaaraha ama garoomada ha tagaan ama shaashada hortooda ha kala socdaane aad markaasi u daneynayay oo aad u jeclaa dhanka ciyaaraha harun waad maasan tahay dabcan marka la joogo Soomaaliya sidee loogu xiiseeyaa ciyaaraha Soomaaliya waxaan dhihi karnaa wuxuu kamid yahay dalalka ugu badan ee Afrika ama ugu horeeya ee isboortiga aad loola socdo aad loo tixgeliyo hadduu ahaan lahaa isboortiga gudaha iyo kan dibadda horumar badan dalka ka socda oo markaasi inkastoo coronavirus haddana soo dhexgalay haddana wasaaradda iyo maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ay wadeen waxaa kamid ah
garoomo hagaajin ama ballaarin lagu sameynayo tuuladii isboortiga dib loo soo nooleeyay oo markaasi roogii macmalka ahaa la dhigay mar dhowna la rajeynayo inuu ciyaaro martigeliyo sidoo kale garoomada kale ee lagu ciyaaro waxaa kamid ah Koonis waa Cabdicasiis Dhaca iyo sidoo kale garoonka jaamacadaha oo ku yaala degmada Hodan marka isboortiga aad ay u xiiseeyaan dhalinyarada markii ciyaaraha gudaha jiraan garoomada way camiraan marka kale ciyaaraha dibadda ay jiraanna dhalada horteeda kama kacaan oo way la socdaan oo daawadaan oo isku xifaalayaan oo markaas su'aalo iska weydiiyaan marka aad ay ula socdaan dhalinyarada Soomaaliyeed isboortiga noocyadiisa kala duwan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waa tahay ciyaaruhu door intee leeg ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada door weyn ay ka qaadanayaan oo markaas isdhexgalkii iyo sidoo kale nabadiiba ay qaybta ugu weyn ka tahay marba haddii la isku yimaado oo la isdhexgalo waxaa badanaya barashada iyo maaragta xushmada la isku haayo labada dhinac waxaad arkaysaa laba kooxood oo laba degmo kala duwan ka yimid ama laba gobol oo ka kala yimid oo markaas imaanaya isbaranaya isdhexgalaya marka saameyn weyn ayuu ku leeyahay isboortigu dhinacii nabadda marka la yiraahdo marka gobolkayga marka ay u imaatay inaan kaaga kugu tago waxay wax weyn ay muujinaysaa aniga oo ah in markaas gobolkii kalena si weyn la igu soo dhaweynay maadaama dad isboorti aan hore isu baranay oo isdhexgalnay marka muhiimad weyn uu ku leeyahay isboortigu dhinaca nabadda runtii sidaan la socono mararka qaar waxaa caalamka ka dhaca jinsi faquuq loo geysanayo ciyaartooyda ka duwan kuwa kale gaar ahaan qaaradda Afrika aad bay ugu badan yihiin dadka ka cawda dabcan jinsi faquuqa tani maxay dhibaato ah ay u keeni kartaa mustaqbalka ciyaaraha inta badan waa laga hadlaa oo jinsi faquuqa ama isirna ceebka lagula kacay xidigaha ama dadka madow ee la socda ciyaaraha hadii aan lahaayeen tababarayaal hadii aan lahaayeen ciyaartooy kubadda cagta ciyaarta iyo maamulada kale ee kooxda baad ay kamid yihiin markaas lagula kacay jinsi faquuqa runtii saameyn weyn ay ku yeelan kartaa ciyaaraha inkastoo hadda inta ugu badan maamuladu ay ku dadaalayaan sidii loo xakameyn lahaa haddana jinsi faquuqa sidii hore hadda inuu ka soo yaraanayo aad moodaa sidii loo wacyigelinayo dadkii loogala hadlayay laakiin haddii xoogaysto saameyntiisu leeyahay waxa laga yaabaaba in xidig madow ama qaaradda Afrika ka soo jeedaba uusan Yurub ka ciyaarin oo kale saameynta ugu weyn markaas ku yeelan kara dadka marka ka soo jeeda qaaraddan Afrika aan ku noolnahay marka jinsi faquuqa inta badan waa wax ay ka hortagayaan maamulada markaas ciyaarahooda markaas lagu dhex jiro iyadoo xidiga waaweyn oo kubadda cagta jinsi faquuq lagu la kacay hadda markii oo coronavirus uu soo baxay oo kale waa kii dhakhtar yiri daawada waa inaan ku soo tijaabinaa Afrika saameyntii ka dhalatay iyo falcelintii ay sameeyeen xidiga waaweyn oo Afrika ka soo jeeda sida Didier Drogba iyo Samuel Eto'o iyo kadib waa kii markaas raaligelin la bixiyay marka isirna ceebka ama jinsi faquuqa wuxuu ka iman karaaba dadka cadaanka badanaa waxa jinsi faquuqa waa dadkan madowga ah marka Didier Drogba iyo waxay leeyihiin xayawaanna noqon markii lagu tijaabinayo daawo marka saameynta ugu badan ay ku leeyihiin jinsi faquuqa wayna jirtaa laakiin sidii hore uma badna hadda inay soo yaraanaysaa moodaa ugu dambeyn aragtidaada maxay tahay ku aadan sidii nabadda ciyaaruhu ay si wada jir ah uga qayb noqon lahaayeen horumarka caalamka horta ciyaaruhu waa nabad waa isdhexgal waa markaas xushmad dadka qaar ciyaaraha la socda waxaad moodaa in markii oo warbixin aad ka qortid ama ciyaaryahan ah warbixintiisa sheegtid in adigu aad marka ciyaaryahankii kale ee ka soo horjeeda isaga ama kooxdii ka soo horjeeda aad taageero u tahay laakiin taas macnaheedu ma ahan isboortigu waa isdhexgal waa markaas waa fun just fun kaliya ma ahan in sidii reality iyo heer dagaal inuu ka gaaro marka isboortigu mar walba waa nabad isdhexgal waxaan ku baaqi lahaa in dhalinyarada qaarkood inta ugu badan way bisil yihiin hadda kuwa kale dhimanna inay soo raacaan oo isboortiga ay u fahmaan inuu yahay isdhexgal iyo nabad iyo maaragtay waxaan dagaal iyo colaad ahayn intaasaan kusoo gabagabeynaya inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in maskax badnaantu ay tahay wax iska dabiici ah lagu dhasho isla markaana la kala dhaxlo oo haddii uu ku dhasho maskax badnaanta sidaas uu ahaanay weligiis sida ay aaminsan yihiin dadka qaar haddaba xubinta wax ka baro ayaa ku iifinaysa sida loo noqdo qof xikmad u saaxiib ah
waxaa soo jeedinaya ustaad cumar khatar. siyaabaha ugu fiican oo xigmadda ilaaha subxaana watacaala bixiyo laakiin siyaabaha ugu fiican oo qofka uu u noqon karo qof xigmad badan waa inuu noqdaa qof dhegaysta fiican oo wax dhegaysta oo dhegihiisu furan yihiin inaa noqotid. waxyaalaha kaleeto qodobka xiga oo muhiimka ah qofku inuu noqdo qof aamusnaan badan oo aan hadal badnayn. haddii uu hadlaayona hadalka uu ku hadlaayo qof ka fiirsada oo og marka uu hadlaayo waxa uu leeyahay iyo sida hadalkiisa uu rabo inuu u yiraahdo qof og. ayaduna waxay keentaa in qofku noqdo qof xigmad u saaxiib ah. taas waxay sahlaysaa in xigmadaada iyo taxadarkaaga iyo adaabtaada inay noqdaan wax isbila oo noloshaada micne u yeela dadka kalena ay kugu xishmeeyaan. sababtu tahay dadka xigmadda ilaahay subxaana watacaala siiyey aad ayay maxay ahaato dhaqankooda iyo la noolaanshahooda dadka kale intaba ay soo jiidasho badan u leedahay. siyaabaha kaleeto oo ugu wanaagsan oo loo noqdo qof xigmad badan ayaa waxa iyadana ay tahay in aad tahay qof wax akhris badan. inta akhriskaagu la egyahay waxaad samayn kartaa inaad noqotid qof xigmad u saaxiib ah. caalam kaleeto ayaad soo akhrisay markaad buug akhrisid, 2 markaa akhrisid, 3 markaa akhrisid, 4 markaa akhrisid, maskaxdaadu waa kasii ballaaranee markii hore halkii maskax ay ahayd. sababtu tahay waxaa haysataa intaas oo maskax waxay ku siinaysaa inaad noqotid qof xigmad u saaxiib ah. akhriska badan oo waxyaalaha uu aadka u sahlo maxay ahaato inaa qofku uu noqdo qof xigmad badan. sidoo kale waxyaalaha oo aadka muhiimka u ah waxa waaye ruuxiyadda qofka dhisan inaad tahay. ilaahay subxaana watacaala xiriirka aad la leedahay sidee yahay, cibaadada sidee ku tahay, qur-aanka sidee ku tahay, noloshaasoo dhan iyada way ku hagaajinaysaa. inta aad ruuxda ka dhisan tahay waxay sahlaysaa in xigmadaada iyadana ilaahay subxaana watacaala uu kuu sahlo. la noolaashaha qur-aanka aad la nooshahay iyadana waxay ku siinaysaa xigmad. sababtoo ah qur-aanka xigmad badan ayaa ku jirto. marka qofka waxaa laga rabaa qof aad u aruursan oo mufakir ah inuu noqdo. dhinaca uu u fikiraana ay tahay fikir togan qof ku fikiraya. waxa ay ku sahli doontaa in xigmad badan ilaahay subxaana watacaala qof uu ku madnaysta aad noqotid. qof hal abuurkiisa uu fiican yahay sidoo kale inaad noqotid oo hal abuur leh oo wax curiya. waxyaalahaasoo dhanna curintaas waxay ka imaanaysaa sida aad u dhex gasho mawjidaha buugaagta qoran. haddii qof akhriska u furfuran aad tahay waxay sahlaya in xigmad iyadana ilaahay subxaana watacaala oo kugu siiyo. xigmadaha sidoo kaleet waxaa laga helaa dadka wanaagsan oo waqti lala qaato, lala fariisto, lala sheekaysto, waayo aragnimadooda laga faa'iidaysto. waxaa kaleetoo laga helaa xigmadaha in nolosha aan noolnahay iyo xaaladaha isbedbedelka samanka intaba duruus inaan ka barano. duruustaas waxayna dhaxal siinaysaa inaan kaga gudubno maraaxil badan oo aan u joogno nolosheena. waxayna siinaysaa inaan xigmad badan ka kororsano nolosha noocaas ah. howlaha bilicda iyo nadaafadda ee waddanka loo qabanayo way isa soo tarayaan. waxaa jira da'yar Soomaaliyeed oo ku howlan fayadhowrka deegaanka iyo caafimaadka bulshada, balse waxaa ku wajahan caqabado dhowr ah oo kaga imaanaya bulshadooda. waxaan isku daynaa inaan wacyi gelino sababtoo ah dalkeena uu burburay, dadku ma wacyi gelisana. markii laga reebo dad gaar ah oo dadku isku mid maaha, way iska jiraan dadka qaar. Soomaalidu waxay u badan yihiin dad iska oral society oo kaftan bay ahaan ula jeeda ama kuwa ay dhab ka tahayba. marka way iska dhacaan in la yiraahdo dadkiina labiska quruxda badan ma waxaa rabtaan qashinkan ka shaqeysaan oo lacag ka qaadataan oo qashin baad soo labisateen wayna dhahaan. jeclaan lahayn inaan dhar xun soo xirano oo nadaafadeena ka shaqeyno. taasna dee suurtagal noqon mayso. oo nadaafad markaad ka shaqeynayso marka koowaad waa in adiga nadiifsan tahay si aad dadku ay kugu daydaan. dal bilic leh qurux badan deegaan ahaan waxaa samayn kara hawl adag oo ay hagar la'aan ku qabtaan shaqaalaha howlaha nadaafadda. waana fahamkeeda oo keliya waxaa Singapore ka dhigay dalka ugu nadiifsan uguna quruxda badan dunida. waana faham darideeda oo keliya waxa Soomaaliya ka dhigaya dal meeshii laga istaagaba qashin iyo dhiiqo badan. arrad waa dan uskagsi waa doqonnimo. fadlan qadari howlwadeenadeena shaqooyinka nadaafadda. fariintan waxay gar u tahay raadiyo himilo. qaybihii dambe ee barnaamijka dalka iyo dadka ayaan isla soo gaarnay. haatanna waa qaybtii 11aad abuu kutubay xidigaha ka dhex muuqda waxaa ka mid ah Jayte, Ilka Case, Ajakis iyo jilayaal kale. dhageyso duqdaan waa duq oo iska ruush adna xoogaad leedahay amuntii kula tagin adan kugu ognahay kabirta waa faasuqdan kugu ognaaya waa salaamaya ma santa waa fokas
وحشوني يا ملينا هيا حكسي هذا تقدر لا دردارني واي انا لا دردارني واي ابوت انا كوا قاتقنا يا استرتيبه وكاسق اسلام في يعني اسكدي ودقميسا يا سفي عنو دقن هي واي قاس وما تصنت اقولي منت نبح يا دول وما تصنت maanta waa maalintan sugayay laakiin arooska garanaya ushan intay u socotaa waxaan u malaynaa bermatiibada waay shaakadan culayskeeda weli way qaldaysaa malaynaa abbaayo waxaan ku weydiinaa walaashay magaciyaa ii gooyey magaci muxuu ahaa faadimo farxiyo kutubey haa kutubey hee la yidhaahda gormee iigu dambaysay ma xasuusan karo aboo macaanodaada qalbigay buu roonta wejiga maa feydid weji furisi weji fur ah haa haddaan soo xasuusta wax yar mar horan ba ku diyaari waayo haye qarso bal ha xishoonin caadi waay kulli adigaan kugu talagalay maxay tahayna maxay riyaal sacuudi waa weli lacagiisa sooma sarrifin riyaal miya haa waatan se uma jeedid hoo kala fur si fiican u fiiri qabso marka adigaa iskale hayabo wejiga fur marka macaani hayabo in muddo ayaan ku oomanahay waayo laa ilaaha ila allah maxamed rasuul indhahayga miyaa mase acuudu billah xitaa wejigeeda u qabtay soor qabowdi maanta intaa la iga keeno waabin kaarnay adiga maxaa ahayd yaa aboo macaano abbo waxay dhihin abeesaa ku rugtay ii qubay aboo kuu qubay maayo qarasoo ku barkatay yaa acuudu billah waxaan ku weydiiyaa eligtaas cad oo afkaada kasoo taagan maxay ahayd laguma sheegino layma sheegin baqal waa ka araatise yaa waxaan lug miya mase lugtaan miina aaryadan waxay ahayd maxaa kaaga dhaca lugta ma lagu sheegino layma sheegin lugtaada webi galbeed ha laga hore waxa ishka daa ma lagu sheegino layma sheegin ishaada fud ha u dhammaatay yaa naagtaan meydkaa ii keenay naagtaan amaan bannaan kuu shida soo bax laakiin tacbaan waa hadday igu dhimatay dhooma ay sheegata aw dad ma joogo markadada maanta meydkaa iyo hadda sagaaadaas intaas aan isla gaarayno waxaa kuuroon inaad si fiican ilaah aragto aniga may taqaano si fiican aniga ilaahkii abootadu u eheedaan hayo xalana abootaadka soo arka cadeeska u soo harto war xaloo dhan qoriyan ku wardiyahay naagta waa ka ilaalihay naagtaan duqdaa meydkaadii kan waa meyd soomaa maalinka iga soo doonaysana 99 sana jirtaa okay waa loo qolayha okay awiyada okay awe awe ninki kula wada naagta awe nabadiiguma jirta hay halgeesi hadda ulu horta guriga dhaxtaa laga soo baxay guriga madaxdaalo say u dhex taale u dhex aale hadday dhimatana siyadeeda adan kaa saana taanayaan soomaali markay dhir kale saasiga u tiina xawla maseexa u leeyahay war xala qoriyan ku wardiya waa dhamaatay واليوم نجي انت يا سؤال هاي ليش كده يصبح ناقصة ناقصة يصبح والناقصة دي انا كل سؤال وشوفوه كان علي مقبل شوف انا اغنى ودي كده ما عرفت ودي كده انا ما كان نجي في النساك ودي كده يا الحاصل ناقصة انت لما بدك كتورة ما تقدر بعيد وربط كتورة من الثلاثة ومكوش شجع العكس الناس موضوع على انك اذكر علاج الدنيا مريض ناس كان قال لك العكس تمشي ما فيه وصلك انا اقرا وضبط مكانك ما يقارن حبيت بك عمل مكوتا وين وين هو كان العكس دي على السيا وعلى الجدع دخلنا قال عشان اخذ من تحت الوقت وقال
الحمد لله الحمد لله ليش هاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. سوري. واحد رمضان سوري. عربي. كيف مقعد مقعد شيخ مقعد أولي. كيري بدو. ما يا. قبل لا يصدق ما. يا أبو إن شاء الله توصل الكل. وعم كمل جميلة. هو عادي على محمد أنا وحواي شركة دوحة سعودي ومدينة وحدينا ما بحنا. الله تقول حاسس بلكن مصاريك يا أبو عبد أو بلا. أو تلفون قال لي أوكي بنصير أختنا. نمبر شيك. كم نمبر شيك. والله بحال شيء. أوكي. بابا حسن سوري تفضل هلو السلام عليكم حاج معنا وافق السلام كودي أنا كنت بصير أنا أقول حناق وحكي يا رب تصلح أنا بعملها حناق الحاج لأنها عن كرب وحوالي ولا له واجب لي وحنو صبي ما أنت أم كسري أو أنتقد كسري كبعد الآلة أنجل السهرو ما كرب أنا كل ما أو مركنا أول شيء أصلا نرسل قناة وأول شيء أردته لكن ماذا حاجة لا يحكي السورة أرين ما جرت شيء أرين ما جرت وأنا أقول قصتي نيو تبقى أنفوق السعودي كانوا ملانا أنا أقول قصتي معايا الله بس صحيح إن السبت وغلط إلهي ذلك ما قلت مركز السؤال وأكون الشيء سنة تبكي قصتك على الشيء تبع لنا وقت محل مريان اليوم أوكي يا وما تنتهي حتى السؤال واحد intaas aanu ku dhaafno qaybtii 11aad ruwaayadii Abutu Kutubey guud ahaan waa inaga inta barnaamijka dalka iyo dadka waxa soo saaray idina tawaniyay Maxamed Xasan Maxamed intaan ku wada kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaas iyo amaan Allah